Asalaamu calaykum walaalaha qaaliga ah, waa idin wada salaam markasta adduunka joogtaan. Waxaa idin leeyahay subax wanaagsan. Haddii ay ku tahay subax wanaagsan ayaan ku leeyahay. Haddii ay ku tahay duhur wanaagsan. Haddii ay ku tahay habeen wanaagsan insha Allah. Sida arkaysaan xali toole ayaan guriga hooshii wixii dhan iska qabtay maadaama aan balan leeyahay oo magaalada aan gali rabo. Balamo ayaan leeyahay, adeeg ayaan rabaa inaan suuqa ka doono, waxyaabo badan ayaa igu furan. Gurigii ayaan waxaan sameyn doonaa insha Allah. Fadhigayna wuu inoo hagaajisan yahay maasha Allah tabaarakallah. Hawada ayaan u furi doonaa, banaanka iftiinka kasoo baxaya ayaan guriga kusii fasaxi doonaa oo iftiinku waa muhiim inuu guriga soo galo. Dariishadihii ayaan kor u qaaday iftiinka si ay noogu soo gasho maasha Allah tabaarakallah. Sidaas ayuu fadhiga noogu taagan yahay. Waxaan idin leeyahay soo dhawaada insha Allah. Wiilka yarka ayaan waxaan geysan doonaa insha Allah xanaanada. Kadibna waxaan sameyn doonaa gabadha yarta ay waxay leedahay balantoo ah sanad ayaan buuxinay maasha Allah tabaarakallah. Hambalyeeso dhahay gabadha yarta sanad ayay buuxisay. Wiilka yarka ayaa xanaanada geystay, kadibna waxaan u sii socdaa gaariga oo aan rabaa gabadha yarta balanteeda inaan hore u sii aadno. Inay soo raacdaan ayaan rajeynaa, soo raac kale balantii ila aada, suuqi ila aada oo ila soo adeega. Maanta shaqadeena meero hoosheena aad iyo aad ayay u badan tahay. Maalinteenu dhan ayaa idinla qaybsan doonaa insha Allah. Intii karaankeyga waxaan rajeynayaa inaad ka heshaan muuqaalkan. Haddii aad muuqaalkan ka heshaan waxaan rajeynayaa inaad ii share gareysaan oo laagtan aad idin saartaan oo aadan naga iloobin laagta insha Allah. Waana mahadsantihiin meeshaan aan taaganaana hadda adika ay soo gaarsiiyay inta inka badan ayaan idinka rajeynaa. Balanteeni ayaa hadda u sii soconaa waa subax hore oo yacni xilli hore ay ahayd balanta 9 subaxnimo. Wiilka markaa yarka xanaanada geystay balantii ayaan hadda imaanay. Balanta waxay ahayd sanadka markuu ilmaha buuxiyaan, sanadka waa controlka sanadka insha Allah. Talaal iyo waxaasna way lahayd alxamdulillah. Waxayna ayaan iska soo qaadanay balanteeni meeshaan ayaan iska soo fariisanay. Wax yar ayaan isla dheeleynaa intii aan sugayna balanta dhakhtarada nooga imaanayso. Iyadii aniga baashaalka adduunka ayaan haynaa. Waxaa waaye maasha Allah tabaarakallah. Ilmaha Ilaahay noo xifdiyo. Balantii ay haddana ka soo baxnay waa kana gaariga ayaa hadda soo saaray, kursigeedii ayaan ku xiray. Waa isla arki doonaa suuqa ayaan aadi doonaa insha Allah. Suuqa waxaan iloobay oo yacni in aan muuqaalka idinla duubo markii aan adeegayay, laakiin waxaa waa iska iloobaba. Adeegii ayaan soo gadanay, waa soo adeeganay maasha Allah tabaarakallah. Sida arkaysaan suuqa marka hadda kasoo dhamaan hadda guriga ayaan imaanay. Adeegii oo dhan dukaanka waxaan tagay Carabta oo yacni cuntada xalaasha lagu gado. Dukaanka caadigana waa soo maray. Fridge-ka ama talaajada waxaan sameeyay alaabti dhan oo yacni ku jirtay raashinkii horeeto dhan waan ka soo saaray. Waan hagaaji doonaa, waan soo nadiifi doonaa. Inta muuqaalka haddii aan dhaho inta soo dhan waa wada duubayaa, inta wada tirtirayo waxay noqonaysaa muuqaalka aad iyo aad ayaan ugu dheeraa doonaa insha Allah. Laakiin waxaan rajeynayaa inaan muuqaalka xoogaa soo yara gaabiyo si aadan adika igu caajisina. Yacni muuqaalkana uu noqdo muuqaal quality leh oo yacni aad ka faa'iidaan insha Allah. Fridge-ka markii aan soo hagaajiyay waxyaabihii yaryaraay caagadahaas waaweynka sida arkaysaan inta badan waxa waaye wuxuu ku xiran tahay 2 caag oo waaweyn ayaan si fiican u isticmaalaa. Basasha iyo baradhada iyo waxaas ayaan ku shubtaa midka ugu hooseeyo waayo basasha iyo baradhada markii aad fridge-ka gashato qaybta ugu hooseyso kaama bukanayso, kaama bololeyso. Haddana waxaaba la soo gaaray xilliga kuleelada. Haddii aad dhahdo meelo kale ayaan gelinaa ama armaajado kale meel kaga shubanaa, xoogaa way kulanaanaysaa wayna kaa bukanaysaa. Laakiin fridge-ka markaa qayb aad ka gashato hadhow kaama bololeyso si iskaama bololeyso qaybta ugu hooseyso fridge-ka ama aadan badan isticmaalayno kale ayaan ku shubtaa ani ahaanteyda. Sidaas ayaan ila qurux badan maasha Allah tabaarakallah. Haddana waxaan ku jirnaa adeegii ayaan kala habeynaya, kala toosinayaa. Wallaahi horta adeegga raashinka bisha la soo adeegayo, adeegga la suuqa laga soo gadaa kala xareyntiisa ka daran. Anigu kala xareyntiisaan ka necbahay. Mana jecel been ma sheega waqti badan ayay u qaadataa. Maalinteeda kala barka, kala xareynta, kala gurinta. Yacni adeegga marka la soo gadaa easy waa fudud, laakiin marka kala xareynaysa aad iyo aad u adag tahay. Maxaa la sameynayaa? Waxaa waaye adeegii ayaan hadda kala xareynayaa. Waxyaabihii meel kasta wixii loogu talagalay ayaan kala sameyn doonaa insha Allah. Jikadana gacanta ayaan hore u sii mari doonaa waayo waxyaabo badan oo maadaama subax la sii balan lahay waxyaabo weelal yaryar oo xalil oo kale looga sii sexday iyo wixii aan ku cunteynay oo kale ayaa halkaas yaalo saaka subaxii hore lagu cunteeyay. Kadibna waxaan sameyn doonaa hadda qaybtan oo yaalo mashiinka kafeega loogu talagalay, mid cuntada lagu kululeysto kale waxaas oo dhan ayaan dhag ka siinayaa. Gacantaan sii mari doonaa insha Allah. Waan nadiifi doonaa. Sida arkaysaan meesha waxaa ku dhac shumac qashimo ku dhan ayaa halkaas ku daadanayo markii oo waxyaabo la isticmaalayo. Laakiin
waxbaa gacanta markaa iska sii mariso oo gacanta aad ku hayso jikadaada aad iyo aad ay kuu fududaanaysaa oo adiga aad ka warhayso. Jikadan markasta waxay fiican tahay markuu hal qof gacanta uu ku hayo, laakiin 10 gacmood markay gacan lisdhaafsanayo shay waliba meesha aad dhigto kuma yaalayaan. laakiin alxamdulillah mashiinkii ayaan hadda alaabta kusoo gurayaa oo ku shidi doonaa insha Allah. wixii aysan galaynin alaabta aanan galaynin oo yacni alaabaha waaweyn oo kaleeto macquul maaha in la geliyo ayaan gacanta mari doonaa insha Allah. waan dhaqi doonaa. haddana waxaan soo qaatay oomada mashiinka loogu talagalay. mashiinka waxaan dhahay ficid corona la dhahaa, gabadhii caawiso oo la ogeyn waayo oo jikada igula jirto mar walba. mashiinkeeni ayaan kusoo daartay haddana alaabta intii noo dhaqaysa ayaan waxaan rabaa haddana alaabtan kaleeto inaan intii deeq weyso oo kaleeto haddana gacanta intaan mariyo. aniga sida arkaysaan shabaqad waxaan sii jiray halkan ii ooli jirtay meesha ubaxa iyo sokorta hadda ii taalo oo alaabta aan saari jiray oo alaabta loogu talagalay markii la dhaqo waan ka qaado waayo jikada dhan waxay noqonaysaa ciriiri, jikada kuma qurux badnaanayso. marka waxaan sameeyaa meesha alaabta lagu dhaqo maqsinka waxaan sameeyaa qaybna ku dhaqaa, qaybna alaabtii aan dhaqay oo kaleeto ayaan saaraa. kadibna markii xoogaa 30 daqiiqo ama 20 daqiiqo alaabtii aan dhaqay aan saaray oo kaleeto ii taalo waan qalajina waan ka xareynaya. alaab badan oo meelaha ku tataaleyso ama yacni waa laga qurux badan insha Allah. waxaan rajeynayaa ka faa'iidaan adigana asaas sameysaan waxyaabaha ugu badan ee jikada ciriiriga gelina in laga kala xareeyo, qaanadaha ku kala habeystaan. haddii aad qaanadba haysato sidaas ayaa qurux badan. meelihii darbiyadii wixii dhan ayaan soo mufta kasoo gedinaya, soo hagaajinaya. waxaa waaye maasha Allah tabaarakallah, shaqaa sharaf leh, shaxaada ceeb iftiina banaanka ka jiro. kadibna waxaan sameyn doonaa insha Allah meesha cuntada lagu cunay. aniga waxaa raashinka waa liigu daadaadiyaa ilaaha faxan ma fahanteen. waxaa raashinkii roogaas waxaa wiigii hal mar ayaan soo dhaqaa waan ka qaadaa meesha waayo haddii aan dhaho bilaa roog ayaan dhigayaa iyadan waxay noqonaysaa miiska oo meesha yaalo cuntada wuu soo soconaa xoogaa wuu dhaqdhaqaaqa markii cunuga sidaan u cugsado. that's why ayaan roog u saaraa. roog marka aad iyo aad u fiican yahay. rooga hadda aan haysto mashiinka oo mashiinka dharka lagu dhaqo kaleeto wuu ii galaa, yacni waa soo nadiifin kartaa kadibna waa kusoo ceshtaa meeshiisa. maasha Allah tabaarakallah. hadda markii aan soo hufargariyey oo aan soo kilin gariyey maasha Allah tabaarakallah lagama sheekeyn karo jikadeenii sidaas ayaan dhagdhag ugu soo dhigtay. haddana waxaan idin tusi doonaa hidee howshii aan soo qabanay waa kana fridge-kii sidaas ayaan kusoo hawiyey. ukumankii halkaas ayaan soo saaray, raashinkii waan soo kala xareeyey intii karaankayga aan abooday. maasha Allah tabaarakallah. daal dheer kadib waxaa waaye waxyaabaha dheerdheerka ka jabka waxyaabaha u baahan askarka meesha oo dhan ayaan soo geliyey. halkan barbaroonigii, liintii ayaan kusoo ritay, halkaasna qajaarkii, kabsar caleentii wixii oo dhan sidaas ayaan usoo kala habeystay. basasha iyo baradhadan halkaas ayaan kusoo shubtay. maasha Allah tabaarakallah. fridge-keeni sidaas marka hadda waxaan sameyn doonaa insha Allah wax yar oo cunto ama qada yar oo fudud oo kaala iska arag ayaan bobsi doonaa. baastadan aad iyo aad ay u fududahay, aad iyo aadna u macaan badan tahay. hilibkii aan keenay ayaa waxaan ka reebay wax yar oo hilib ayaan ka reebay. hilibka sida arkaysaan waa hilib lo wuxuu u baahan yahay xoogaa karis ayuu u baahan yahay. basal ayaan kusoo shubay marka horeeto kadibna hilibka ayaan ku daray. halkan waxaa inoo saaran biyo baasta ayaa inoo saaran insha Allah. baasta yar oo maasakooti oo kaaliska arag oo baasta isku dhex karis camal ay noqonaysaa, laakiin isku dhex karis ma noqon doonto insha Allah. waa arki doontaa sida uu sameyn doono oo habeen doono. hilibkii waxaan kusoo daray wax yar oo biyo si ay noogu bislaato. waxaan kusoo daray hilibkii, basashii, yaanyo ayaan kusoo darsaday. yaanyada haysata ayaa ku darsan kartaa. ani ahaan waxaan isticmaalay yaanyada baakadaha ku jira ee diyaarsan. kadibna waxaan kusoo daray maraq digaag iyo cusbo yar ayaan kusoo darsaday. xawaash xawaashka haysata ayaa ku darsan kartaa. hey hooyo karaal noqdo insha Allah. gabadha yarta bibida ee soo jeeda. kadibna waxaan kusoo daray wax yar oo biyo si ay noogu soo shiilmato waayo hilibku xoogaa waqti ayuu qaadanayaa. caruurna waa siisanayaa biyaha maadaama aan ku daray waxay tahay hilibku waxaan ula jeedaa hilibku xoogaa inuu jilca ayaan rabaa. kadibna marka waa kasahay toon ayaan kusoo darsaday. maasha Allah tabaarakallah. haddana waa inoo soo shiilmatay. suugadeeni diyaar ayay inoo tahay. lagama sheekeyn karo haddii aad sidaan barato inaad u sameysato baastada dheerdheerta lagama sheekeyn karo. waxaa waaye baastadii ayaan halkaas kasoo saarayaa. baastada micneheedu waxaa halkaas uga soo saaraya waxay tahay maadaama aan rabo baastada inaanan miirin. suugada sida arkaysaan biyo badan ama dheecaan badan ma laha. baastada biyaheedii xoogaa inay soo raacdaan ayaan rabaa. ma aanan miirin baastada waan kasoo baxsaday. hooyo maxaa dhaca mudaharaadkan muuqaala cod saaraya ilaad. hooyo maxaa dhaca mudaharaadka
soo baastadii si fiican isku soo dhexgeliyay kadibna halkan waxaan kusoo jarjartay yaanyada oo yaryariis basal iyo barbarooni kala nooc ayaan kusoo diyaarsaday halkaas soo maasha Allah tabaarkallah laga mashaakay soo baastadan wax badan uma dhibno hadda diyaar ayay noo tahay insha Allah waxay u baahan tahay wax yar oo huuris ay u baahan tahay si yaanyada aan kusoo daray gadaal aan kaga soo daray oo yaryarta ay noogu xoogayo yani xooga kusoo huurto ama xooga ay ku yara jilcdo maasha Allah tabaarkallah soo si fiican ay isku soo dhexgali doonaa insha Allah وكنا وينو ديار باستديني دك كالسك أرك باستدان والله هذا السنة برضو إن أسميستو حيرو بس أو سميستو دين دلان إموسن على هشو لقى مشاكين كرو